إلهي بمهله marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo runtii haddii aanu hawsha inoo qaban ama aanu go'aankeeda lahayn oo fulinteeda lahayn oo dhismaha maanta aynu joogno aanu isagu fuliyeen aanay waxba inoo fuleen sidoo kale waxaan u mahad celinayaa wasiirka maaliyadda Saad Cali Shire oo aan isaga ugu talagalnay shahaado sharaf oo runtii la shaqeeyay hay'adda muddada ay jirtay tacab badan la geliyay aqoon iyo kartiba waxa kale oo mahad celinayaa hay'adda trademark Somaliland oo iyaduna maalgelisay shaybaadhka cuntada waxa kale oo mahad celinayaa gudoomiyayaashii soo kala horeeyay hay'adda dhowrista tayada Jamhuuriyadda Somaliland oo nimba meel soo gaarsiiyay waxa kale oo mahad celinayaa gudoomiyaha bangiga oo si dhow ula shaqeynayay hay'adda waxa kale oo mahad celinayaa maareeyaha haamaha shidaalka oo isna runtii si wanaagsan oo gobonimo leh aan wada shaqeynay muddadii aan wada joognay guud ahaan waxaan mahad celinayaa agaasimo waaxyada komishineerada gudoomiye ku-xigeenka shaqaale weynaha dhammaantiin waan idin wada mahad celinayaa hawsha aad ka soo geysateen in uu maanta laabkaas iyo dhowrkii habeenay u dambeeyayba tacabka aad geliseen inaad u soo jeedaan ragga qaar oo halkan ay u joogaan hawshoon ugu yar kadis noqotay darteed mahad celin markaan ka imaado mudane madaxweyne waxaan kugu soo dhaweynayaa shaybaadhka hubinta tayada cuntada dawada iyo agabka la ismariyo berbera guud ahaana qaranka madaxweyne dhismaha shaybaadhku wuxuu ka kooban yahay xafiisyada oo ah 9 qol iyo waa dhismahan 9 qol buu ka kooban yahay 2 hool oo ay soo aragnay shaybaadhadu yaalaan cuntada iyo dawooyinku waxa kale uu ka kooban yahay dhisme 3 guri oo ay seexdaan shaqaalaha hay'addu ay dhex degan yihiin madaxweyne guud ahaan waxa kale oo ay hay'addu leedahay 2 injiin oo 24 saacadood baxa oo 220 kilowatt ah oo aad bay waaweyn yihiin ayaa iyaguna noo dhex yaala guud ahaan madaxweyne dhismaha shaybaadhkan iyo qalabkiisa waxa ku baxay 528,733.5 waa dhismaha kaliya ta sidoo kale shaybaadhka cuntada waxay naga maalgelisay hay'adda Trademark East Africa oo taageero dhaqaale ka helaysa hay'adda caalamiga ee deeqaha Ingiriiska FCDO Foreign Commonwealth and Development Office shaybaadhkaasi wuxuu dhameystiray madaxweyne waa kaynu soo kormeernay shaqadiina buu bilaabay waxaana ku baxay lacag dhan $550,000 madaxweyne shaybaadhka cuntada iyo cabitaanadu waxay adeegsan doonaan heertayada standardska ay Somaliland sameysay gaar ahaan hay'adda dhowrista iyo tayada standardska ku shaqeyn doonaan waa standards la sameeyay oo u dhameystiray cuntadu qof kasta oo ganacsada ana wuu helayaa oo waa la siinayaa standardska loo baahan yahay horena waa loo siiyay imikana waa la siinayaa haddii la yiraahdo shaybaadhka dawada mudan madaxweyne shaybaadhka dawadu waa keen soo aragnay shaybaadhkaas isna uu dhameystiran yahay waxaana ku baxay lacag dhan $557,557 waxaanu awood u leeyahay inuu baadho dhammaan halbeegyada khataraha badan iyo kuwa khataraha yar ee bini'aadmiga ugu keento dawadu isugeynta guud ee ku baxday madaxweyne dhismahan iyo qalabka shaybaadhka waa $1,653,733 marka loo geeyo sanadkii aynu ku jirnay kharash operationkii laabka galay oo $330,000 ah marka loo geeyo 97,000 oo chemical reagent ah
waa 2 milyan iyo wuxuu iminka marayaa madaxweyne 2 milyan iyo jarjar buu marayaa maanta laabkaas ugu kacay madaxweyne agabyada soo gala dalka dibadda ka yimaada guud ahaan laabkani shaybaarkani wuxuu awood u leeyahay inuu baadho dhammaan wixii cunto dawo iyo agabka la isku qurxiyo ee cosmetic loo yaqaano ah dhammaantood uu baadhayaa sidoo kale wuxuu baadhayaa oo nagu talagalnay inuu baadho dhammaan iyagana agabyada iyo wax kasta oo dalka gudihiisa lagu farsameeyo ama lagu sameeyo hadday noqoto biyo hadday noqoto cunto iyo hadday noqoto sharaabyo iyo wax kaste oo dalka gudihiisa lagu sameeyo oo iyaga laftirkoodu khataro badan keeni karaa haddii aan la baadhin madaxweyne shaqaalaha shaybaarkan ka shaqeeya waa 34 qof oo shaqaalaha baa ka shaqeeya guud ahaan maamulkiisa iyo shaqaalaha guud ahaan marka la isku daro qolo dekeday u joogtaa oo waa qolada saambali ka soo qaada keenta xarunta xaggan keenta laab shaybaarka iyo qolada halkan joogtay maamulka iyo dhammaantood waa 34 qof faa'iidada shaybaarkan aynu ka sugaynaa madaxweyne shaybaarkan dawada iyo cuntada waxa faa'iido u leeyahay inuu ilaaliyo badqabka shacbiga reer Somaliland sidoo kalena qayb ka qaato kobcinta dhaqaalaha Jamhuuriyadda Somaliland madaxweyne waxa noo suura galay inaan sameeyno oo mudayno 17 heertayeed dawladda Ethiopia hay'adeeda standardska samaysa heertayeedyada ayaa lagu sameeyay 17 standard harmonization baa lagu sameeyay taasna waxay keenaysaa in alaabta dalkeena shaybaarku oo baaro ee standardka la mariyo marka ay quality control ku shaambada ku dhuftaan inay Ethiopia ganacsigeenu toos u tagi karo alaabtaas oo aan mar dambe la jeegareyn doonin sidoo kale madaxweyne waxaan rajaynaynaa inaanu bilaawno wajigii labaad ee naga dhaxeeyay qoladaas heshiiskii hore la wada galay oo ah in wajiga labaad oo noqonaya wada shaqeynta oo loo yaqaano mutual recognition agreement MRA-ga oo isna rajaynayno inaanu qaybtiisii labaad phase-kii labaad sii guda galno madaxweyne shaybaarka qaranku wuxuu higsanayaa inuu helo aqoonsiga ISO 17025 accreditation oo ah shahaadada markaynu maanta aqoonsano ama markaynu maanta shaybaarkeena wax shaybaarno wuxuu u baahan yahay aqoonsi caalamiya oo lagu qanci karo si ay ugu qancaan dhammaan caalamka internationalka oo dhani ay u aqoonsadaan wuxuu u baahan yahay inaynu u sameeyno shahaado loo yaqaano accreditation-ka ISO 17025-ka waxaanu ilaa hadda madaxweyne sameynay siyaasadihii ilaalinta tayada iyo habraacyadii kala duwanaa oo tiradoodu dhan tahay 27 waxaana loo baahan yahay sodomeeyo marka waxaan rajaynayaa in dhowaan uu noqon doono shaybaarka qaranku mid la aqoonsado hadduu alla yidhaahdo markaanu dhammaystirno dhammaan wixiina looga baahnaa ugu dambeyn hay-adda dhowrista iyo tayadu waxay rajaynaysaa inay ballaadhiso adeegyada shaybaaryada qaranka iyo agabka kala duwan oo aan ku darno agabyadii kale ee aan hayn cuntada iyo dawada iyo saas intan aanu hayno madaxweyne waxaa pipeline-ka nagu soo jira oo rajaynaynaa 4 shaybaar oo kale oo ah kii birta shaybaarkii birta oo berbera ah iyo shaybaarkii xanaanada xoolaha oo berbera isna ah iyo shaybaarka xanaanada iyo xoolaha oo isna wajaalena looga sameyn doono haddii la yidhaahdo waxaa kaloo rajaynaynaa shaybaarkii la yidhaahdo methodology-ga cabiraadaha ayaan rajaynaynaa isagana insha allah inaanu helno sanadka 2023-ga madaxweyne waxaanu rajaynaynaa in dhammaan wax kasta oo dalka imanaya oo agab iyo badeecad kasta oo dalka imanaysa inaanu tayadeeda shacbiga Somaliland u ballan qaadi doono inaanu mas'uuliyadda naga saaran aan ka soo bixi doono sidoo kale waxaan madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahad celinayaa garab istaagaad hay'adda u garab taagan tahay mar walba wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh